shanta calaamadood ee lagu garan karo qofka xaasidka ah iyo laba qodob oo kale oo aad ku baqtiin karto dabka xaasidka isla saacadaasi uu ku xastayo ee aad wada joogtaan toddobadaasi qodob ayaynu barnaamijkan ku soo koobi doonaa inaga oo mid kasta isdul taagi doona muddo daqiiqada bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh halkan aad naga daawanaysaan waa horyaalka warbaahinta Soomaaliyeed ee Horyaal TV barnaamijkanina waa barnaamijka la magac baxay siraha nolosha waa barnaamij aad taxano uga daawan doontaan Horyaal TV barnaamijkan maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa shanta qodob ama shanta calaamadood ee lagu yaqaano xasidka ama aad ku garan karto qofka xasidka ah xarigiha gooye shantaasi qodob waxaa si raaci doona labada qodob ee lagu joojiyo xasadka dambiilihiisa ka soo baxaya si aanu saameyn kugu yeelan toddobadaasi qodob ayaanu si kooban u dul istaagi doonaa waqtiga soo socda hadduu alla yidhaahdo balse marka hore aan idiin qeexo xasidnimadu labada nooc ay u qaybsanto xasidnimadu waxa ay u qaybsantaa laba nooc nooca koowaad waa nooc aan kula jeclaynba wax khayr ah oo isagu jecel baraaraha iyo barwaaqada aad ku jirto inuu la soo wareego isagu ka labaadina waxa weeyaan mid isagu jecelba baaba'aaga iyo barakacaaga oo isagu xitaa inuu wax faa'iido ma jeclaa kii hore aba dhaamay qodobka koowaad ee lagu garto qofka xaasidka ah ama aad ku soo saari karto waa qof aad iyo aad u su'aalo badan ayuu ku weydiinayaa noloshiisa qofkaasi su'aalaha uu ku weydiinayaa laba dhinac bay ku saabsan yihiin kow wuxuu ku weydiinayaa waxyaabaha iyo meelaha dakhligu ay ka soo galaan waxyaabaha aad faa'iido meelaha khayrku kaaga soo galo iridaha khayrka albaabada dakhligaaga oo dhan buu ku weydiinayaa si uu ku xasto waxa labaad uu ku weydiinayaa waa meelaha aad ku khasaarto ama aad ku kacdo ama dhibaatooyinku ka soo gaaraan si uu ugu farxo had iyo jeer labadaasi qodob ayuu aad ku su'aalaya qofka aan labadaasi ku su'aalin ogow maaha xaasid qofka aan noloshaada ku dabagelin oo aan wax badan ka weydiin noloshaada maaha xaasid laakiin qofka ku weydiiya talaabo ee aad ku qodqodo ee tafaasiil hoose ka raadiya waa qof xaasid qofkaasi qodobka labaad waxa weeyaan waxa lagu yaqaan afka qalaad involuntary agitation inficaal alla iraadi af Soomaaligan wuxuu ku noqonayaa falcelin iswada oo aanu isagu controlling goorma falcelintaasi dhacdaa waxay dhacaysaa marka oo qofkan aad uga waranto arrimo khayrkaaga arrimo adiga kugu saabsan arrimo waxyaabo fara badan oo noloshaada oo faa'iido ka soo galayso oo bashbash iyo barwaaqadaada ay ka wareysanaya wixii markaad uga waranto oo saacada uu ogaado minute-ka uu ogaado ayuu naxaya kadib waxa bilaabmaya qodobadana bilaabaya marka ila wixii ma control karayo waxa bilaabmaya marka neeftuur fara badan inuu neeftuuro oo isagu ku bilaabo inuu neeftuura bilaabmaysa oo neeftuurkan wuxuu ku qaboojinaya ololka gudaha kaga shidan waxa kale oo ku xigta inuu kolba madaxa xoqdo oo kolba dhinac u jeesto oo madax xoqosho bilaabo calaamadaasina waa mid ku sheegaysa inuu qofkaasi xaasid yahay waxa kale oo arkaysa la yaab iyo argagax ku dhacay isaga matalan waxa tiri waxaan iibiyay dhul baan iibiyay aan bari hore $1,500 siistay dhulkii waxa laga siistay maanta $130,000 neeftuurkii baa ku bilaabmay seen hore soo sheegnay waxa ku bilaabmay madax xoqashadii waxa ku bilaabmay in uu la yaabo oo kula oo 100 halkeed geenaysa marka lacagta dib dhulku celi nin kula talniyo iska dhigaya runtii naxdin iyo argagax aan caadi ahayn baa ka soo ifbaxa waxa kale oo calaamadihiisa ka muuqda inuu midabkiisu isbedelo wajigiisa ama indhihiisa yaryaraadan aad u yaryaraadan oo sheeqan ama uu indhihiisi qayr caadi noqdo oo indhihiisi uu ambabar fara badan ka muuqdo waxa kale oo markaa kamid ah in uu waxan gudihiisa ka dhacay xasadkiisi waxan ka socda gudihiisa in uu caajis uu baytiri low noqdo oo dabkuba ka tago oo caajis uu noqdo oo shut down soo qoro iyo hamaansi uu bilaabo qodobkaasina waa qodob lagu garto calaamadahaas oo dhan wuxuu keenayaa markaasi waxa la yiraahdo involuntary agitation ama inficaal alla iraadi ama af Soomaali noqonaysa falcelin iswada oo isagu aanu control karin Sheekh Shacraawi waxa uu yiri marka uu qofku xastayo uu xasadka xilliga uu xastayo xasadku dhacayo olol ayaa gudihiisa ka shidan oo waxba gudihiisa gubaya waa waxaan keenaya inuu is control kari waayo waayo xasadkii baa gudihiisa ku jimicsanaya sports ka dhex sameynaya marka isma control karo daawade qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa in uu isbedel kugu dhaco adiga marka uu ku soo galo qofkan xaasidka ah haddaad joogto xafiiskaaga shaqadaada gurigaaga meel kale oo suuq aad joogto meheradaada uu ku soo galo qofkani waxa isbedelaya jawiga aad ku jirtay
computerkiiba dhaqaaqi waaya qofkii aad lacagta ka doonaysay telefoon garanaysaba kaa qaban waaya wixii aad xasuusnayd aad islahayd qorbaad waayaysaa barnaamijkaagii oo dhan baa istaagaya hadduu guriga kugu soo booqdo caruurtii wixii baa iswada qabsanaya miyi xitaa haddaad joogto meel baadiye ah miyi haddaad joogto ridii caanaha laga lisi jiray hayinka ahayd baaba caanihii daadinaysa waa la qaban kari waaya yacnihii arrintaadiba waxay isku rogaysaa mijo ilaa madaxa way isqallibaysaaba arrintaadii marka waa qodobka saddexaad ee lagu garto inuu qofkani xaasid yahay mana yaqaano waxa loo yaqaano tabaarakallah ma sha Allah la quwwata illa billah oo quraanku sharciyay ilaahay noo sharciyay taana ma yaqaanba haddaad xitaa adigu tiraa ma sha Allah de isagu afka uu ka oran laakiinse qalbigii ka oran maayo taasina waxba tari mayso qodobka afraad ee lagu garto qofka xaasidka ahi waa qodob xasaasiya qodobkan wuxuu ku saabsan yahay markaad ka sheekaysanaysaan qof kale oo labadiina midna aan ahayn qofkaasi waa qof in badan beerka dhulka ku hayay wax badan oo soo dhabar adeegay soo samray busaarad fara badan muddo dheer ku jiray aad u soo samray oo ilaahay mar kaliya faraj u furay oo arsaaq albaabadaha risqigu ilaahay samada iyo dhulkaba uga furay oo hantiile isku bedelay gabadh qurux badan guursaday haday gabadh ahaydna nin qurux badan guursatay nin hantiile guursatay yacni badbaraadnaya bashbash iyo barwaaqo u bilaabantay ayaad ka sheekaysanaysaa ninkan markaad qofkaas la soo qaadaan wuxuu ku leeyahay ma ninkan aad sheegaysaa ana aqaane war xashiishadu ka shaqayn jiray lacagta yacni wuu quuri laayahay xarigiha gooye wuu quuri laayahay wuxuu ku leeyahay ana aqaana lacagtan wuu soo xaday xaaraan buu ka shaqaystay meel un bay wax kaga jiraan gabadhan quruxda badan waa wuu sixray wallahi saa kumay raacin wuxuun baa jira hadday inan tahay oo nin qurux badan guursato waa la xasdaya ninkan way sixirtay ma waxaad moodaysaa inuu si wanaagsan isku fahmeen yacnihii waa quuriwa xarigo hawgo xaasidkee qodobkaasina waa qodob afraad oo ku garan karto qodobka shanaad baan u gudbayaa qodobka shanaad waxa weeyaan afxumada kaftankiisa ku jirta waa labadiina tanina marka aad labadiinu kaftamaysaan ama aad hadal caadi isweydaarsaneysaan oo ayuu wuxuu kugu arkayaa wax cusub oo qaaliyo qiimo leh midna gaari buu kugu arkayaa wuxuu kugu arkayaa aanu hore kugu arki jirin wuxuu kugu arkayaa kale saacad xidhanto qaaliya wuxuu ku leeyahay war saacadan xageed ka soo xaday yacni wuu ku quuri laayahay waxa kale uu ku oranayaa gaari aan hore u wadan jirin buu kugu arkay war kan yaa maanta kugu aaminay yacni waa quuri waaba waxaas oo dhan ka tahay waa calaamad aad ku garan karto waxa kale darkaysa adigoo isbedelo yar qurxaysto naaxay qurux badnaado ku arkay markaas uu kulay warniyahow ka keentay ma xoolo agoomeed bad cuntaniyo bariyahan waa ka yaabe wad naaxde matalan waxaad leedahay nin shaqa la idilacsiiyay position markaas uu kulay hoo la iskaga daba imanaya ma insa laakiinse meesha de shaqadeeda badane taadi hore lagu qaatay yacni wax kasta negative ku kaega waa calaamada shanaad ee qodobka shanaad noqonaysa ee lagu garto qofka xaasidka shantii calaamadood waa shantaasi hadda waxaan u gudbaynaa labada qodob ee ku daweyn karto saacada uu ku xastay labadaasi qodob waxa weeyaan horta markaad aragto in xaajigi ama xaajiyadii xaasidka ahaa ay soo ruxmayaan oo isbedel ku dhacayo calaamadihii aynu sheegnay hal kamid ah hadaad ku aragto oo aragto in xaaladiisu ruuxitaan uu bilaabay ilaa xaasidkiiba ku dhex jimicsanaya markaaba waxaad bilaabaysaa in aad hoos u tiraahdo adigu ma sha Allah la quwwata illa billah wa eriga quraanku sharciyay ma sha Allah la quwwata illa billah si hoosaad u leedahay isaga hadaad ku tiraahdo ma sha Allah de afka uu ka oran laakiinse uurkii me ilaahayna qalbiga ayuu eega adigoo ku celcelinaya hoos u dheh halkaas xasadkiisa ku qabanaysa qodobka labaad waxa weeyaan suuratul falaq inaad akhrido قل أعوذ برب الفلق وين ذخرده وأذكر عليسو من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد أضو هوس وأخرية أديكم قف كنا كارج جحن شعورتي سيدرين كيسنا دورية وحاسد حرجيها جوا احترام هذا احترام كون كم ذي وقف بني آدم حسدكو ميل فوق هكفلن ولا الكاب نقكرة إن قرابة أبو نقكرة صاحبة أبو نقكرة دتك كل شقة تيم بنقكرة سوق قوة وتشوكتها بنقكرة أصحاب جود بنقكرة انتبه ونقكرة marka xasadku ha ka filanin meel fog in la jooga bulshadu kamid yahay marka xarigiha gooye wax ku jimicsidu doonaya